السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waan islaamay meel walba joogtiin kusoo dhawaasha ciid mubaarak horta meel walba joogtiin waxaan rajeynayaa soonkiina nabad nagu dhamaaday dahabi gaar ahaan aad iyo aadan ku salaamay walaalo telefonkeyga isla nambarka maan haystaa aad whatsappka igala soo xiriiri jirtay messengerha wuu ii furan yahay marka labada meelba waad igala soo xiriiri kartaa hadduu ilaa iraahdo balse iisoo sheeg marka ugu horeysa dahabiyaan ahaa igu dheh marka halkaa ku gudbo horto dad badanaa horta isoo wacay mise waa ila soo xiriiraa oo ilaah niyo maxaa kugu dhacay inaad nooshahay inaad dhimatay warkaaga inaan kabar ahaa inaan rabnay mise waa aan rabnaa koleyto aamusnaantaada wayna dhibeysaa soo hadal hataa haddii aad hal magacaada youtube aada soo geliso hal clip haddaad soo geliso bishi run ahaantii sababtaan u aamusanahay miseba aan u aamusnaa waxay tahay aniga xabsigaan ku jiraa koleyto horta xaafadeydaan joogaa balse xabsigaan ku jiraa waan ii faahfaahin doonaa xabsiga ayada waxaan ka wado balse bas xabsigaan ku jiraa xabsigaan ku jirana anigaa iskeli run ahaantii I was contemplating Soomaali waa lagu yaraa koleyto maskaxdayda ayaan ka shaqaysiiyey intaan aamusnaa dhowr biloodkan aamusnaa aad iyo aad ayaan maskaxdayda uga shaqaysiiyey oo aniga aan su-aalo isweydiinaya su-aalaha aan isweydiinayana waxay ahayd what is the purpose of what I was doing micnaha tahay maxay tahay waxaan aniga aan sameynaya runaantii horta dhowr qodob ayaan ka shalaayay shalayto waxaa la dhahay waa shay xaaraam soomaalidu ay ku xumaaday dhowr qodob aan ka shalaayay dhowrta qodobka aan ka shalaayay waxay ahayd aniga koleyto intaan lahaa qodobkaaga ku istaag oo adiga waxaad adiga aaminsan tahay u istaag oo ka dhaadhici shacabweynada soomaalida intaan is lahaa baa dadka aniga ila dhashay miseba i dhalay ayaanan ka fikirin xanuunka ay soo gaarayso miseba hadalkayga iyo muuqaalkayga aniga aan mashraxa isoo dhigayo dhibka weyn ay kasoo gaarayso soomaali haddaan nahay horto sida ugu badan oo anaka ka faraxsan haddaan nahay oon usoo bixi la-nahay mise aan shaaca isku soo dhigi la-naa waxay tahay waalidkeena riyadaydu waxay ahayd mise warjadaydu waxay ahayd asalkayga hore aniga waxaan soo shaac dhigayaa haddii ay mar hooyadeyda dhimato anigoona u rajeynaynin hooyadeyda inay geeriyooto balse maanan lahayn weji aan ku face gareeyo miseba aan magacaada aan uga oysiiyo hooyadeyda adduunyada hadda haddii la yiraahdo qofka kalix oo aniga wadnahayga taabanayo mise qalbigayga taabanayo oon jeclahay waa maamada hooyadeeda calaa kulli xaal wixii dhacay oo way dhaceen wax soomaali way dhacday maxay u dhaceen lama dhaho sidee wax uga qabanaa ayay dhahaan ayaa la dhahay marka horta taas waan ka shalaay inaa aniga hooyaday aan ka oysiiyo midow horta aniga waan fahamsanahay aniga waxaan ahay inaan aniga ahay waan aada iyo aad aan u fahamsanahay inaa aniga ay dambi igu ahaan aada iyo aad ayaan u aaminsanahay mise way iga dhacdhacsan tahay
balse haddana waxaan aniga aan aada iyo aad aan u fahansanahay waalidiinteena iyo wehelkeena waxay aaminsan yihiin sida anigaan u aaminsanahay waxaan aniga ahay inaanaysan dembi ahayn baa haddana aan u aaminsanahay waxa ayay ka aaminsan yihiin inay sax tahay. inaad fahmaysin aan u maleeya waxaan ka wada qof walbaba horta qof walbaba fahamkiisa mise aaminaankiisa wuxuu aaminsan yahay ayaa la saxan. marka hooyadayda maadaamay qof da' tahay miseba hooyooyinkeena ay yihiin dad Soomaali oo dhaqan ku soo koray isla dhaqankii ku nool oo isla meesha ku nool diinta islaamka ku soo koray haddana haysto inay maanta aan ka dhaadhiciyo miseba ay fahamaan wiilkaaga sidaas ah wiilkaaga nin kala qabo marnaba ka dhaadhacdo aniga magacaadii kama yaabani oo ma aaminsani inay ka dhaadhacayso. haddii maanta laga yaabo hooyooyin badanaa jiraan oo kuwa Mareykanka joogo qaarar Yurub joogo oo ilmahooda waxay yihiin fahansan balseba haddana dhahayo hooyoy waxaad adiga ahaato ahaaw balse shacab banaankaa isoo dhigay ayagoo jecel ubadkooda jecel bay haddana magacaadii Soomaaliya ii dambe bay haddana ka waaninayaan inaysan banaanka isoo dhigin barbaraha shacabka social media. taasoo ayagana ay laba meel u kala baxaan marna wiilkeeda ay jeceshahay inuu farxad ku noolaado wuxuu asaga yahay uu ahaado haddana marna waxay ka fikiraysaa hadduu banaanka isoo dhigo ceebta ka soo gaarayso maadaama anaka dhaqanka lagu soo koriyey aan ku dhalanay aan wada fahansanahay wuxuu yahay. marka horta aniga inaan hooyadayda aan koleyta haddii aan u sheegayo dhowr jeerna waan u sheegay koleyto way fahmi wayse balse in aniga aan ka duubo cod aan ka duubo oo codka markaan ka duubana aan social media soo geliyo taasu aada iyo aada qalad weyn igu tahay waana ka shalaayay. markaan taas ka gudbo social media horta waa meel aada iyo aada dadka u qaribto waaye social media balse qaybta kale ayaan magaceeda aan usii gadabgalayaa aan idin sheegayaa aniga sababtaan xabsi ugu jiro iyo social mediaga waxay meel u qaribsan u tahay. alaa kulli xaal aniga haddaan soo laabtay koleyto haddii aan soo laabto hataa micnaheedu ma ahan inaan aniga telefoon qaban karo uun hadli karo ma ahan sababtoo tahay xabsigaan ku jiraa waana nii faahfaahin karaa nii faahfaahin doonaa waan islaamaya walaalayaal inta ii xistay aada iyo aada laba jabaarkeeda ayaan iga xisay depressionka aada iyo aada ugu weynna waxay ahayd dadkayga aan la hadli karin miseba aan wax u qaban karin
ka waa nabad ku noolaada ilaa xilli dambe wala islaamaya